saaka waxaan insha Allah ku soo dhaweynaynaa magaalada Boosaaso gaar ahaan muntajaca biyo kulule oo aan hadda fadhino sheekheena Sheekh Xasan Alwaajidi oo run ahaantii ayaamahan joogay Puntland kuna yimi siyaaro gaaban isagoo ah ahlul quraankii waxaan leenahay soo dhawow ku soo dhawow wadankaagii deegaankaagii adigoo insha Allah la wadaagi doona ama nala wadaagi doonaba tawciyaadka iyo dhiirigelinta iyo tilmaamida bulshada dhexdeeda ah waxa halkan fadhiya salaadiintii qayb ka mid ah ahlu quraankii run ahaantii labeenta u ahaa Puntland iyo ducaadii waxaan leenahay sheekha soo dhawow insha Allah ku soo dhaweynaynaa gacmo furan wadankaagii waaye deegaankaagii weeye dadkaagii weeye waxaan rajaynaynaa biidin illaahi alkariim isaguna inuu wax badan taro deegaanka isaguna wax badan ka kororsado waxaan rajayn doonaa insha Allah inay noqon siyaaradan iyo booqashadii ugu horeysay ama ugu dambeysay laakiin ay noqoto tii bilowga u ahayd inuu mar labaad soo noqnoqdo deegaankan ku soo noqnoqdo maadaama Soomaalidu ay tahay ahlul quraan run ahaantii caalamkoo dhan ugu qiray inaguna ay muhiim tahay inaynu quraankana weyneyno ehelkiisana weyneyno sheekhana waxaanu ku soo dhaweynaynaa waa quraanku xambaarsan yahay iyo diinka uu xambaarsan yahay oo run ahaantii mudan in la karaameeyo la sharfo risaalada ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo soo dejiyey nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu inoo keenay ilaahay aynu ku caabudayno kalaamkiisii ah mudanna in ehelkeeda la sharfo lana soo dhaweeyo si maqaamkeeda iyo maamuuskeeda intaba leh aad iyo aad baan marka mar labaad iyo mar saddexaadba ugu soo dhaweynaynaa waxaan u mahad celinaynaa oo kale suldaan maxamuud oo run ahaantii istidaafadana lahaa ilaa maalintuu yimina sheekha la adeegayo la socday aad iyo aad baanu isagana ugu mahad celinaynaa jazaahu allahu khayran waxaan isagana u mahad celinaynaa suldaan maxamed oo run ahaantii isaguna hadda qayb libaax ka lahaa salaadiinta waxaan leenahay ilaahay idin barakeeyo jazaakum allahu khayran sida ahlu quraanka iyo quraankii ehelkiisaba u takriiminaysaan una sharfaysaan idinkoo ka niyaaba ah isimadii iyo dhaqankii uu lahaa deegaanka Puntland aad iyo aad baa u sharfantihiin jazaakum allahu khayran ilaahayna ha idinka abaalmariyo ka culimo ahaan iyo ka ducaad ahaanna waa soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan waxaan leenahay sheekh soo dhawow gurigaagii weeye deegaankaagii weeye ku soo noqnoqo quraanka xambaarsan tahayna waxaan rajaynaynaa insha Allah biidin illaahi alkariim inaan noqono kuwii isagana si yani barta oo si hormariya barashadiisa iyo ku dhaqankiisa labadaba ehelkiisana tashriifiyo takriimiyo karaameeya aad iyo aad baan rajaynaynaa ilaahina waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu naga dhigo ehelkeeda bismillaahi raxmaani raxiim ilaahay subxaanahu wa tacaala mahad iska leh alxamdulilaahi rabbil caalamiin halkaan ku kulmiyey nabadgelyo iyo amniina si ilaahay noo siyaadiyo run ahaantii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo bacdallaahi sheekh xasan macalin ibraahim waajidi oo ah qaari soomaaliyeed oo runtii amaha ka martiin oo ahaa sheekh dalkaagii dadka ku soo dhawow sidaasaa dadku baara diinta u jecel yihiin meel walba lagu soo dhaweynaya alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan rabaa inaan u mahad celiyo muasasada minhaaj oo sheekh maxamed cabdullaahi uu hogaaminayo macalin mawliid runtii yani macalinkayga ah oo si gaar ah sharaf igu tahay iyo walaal maxamed faahiye oo maaragtay runtii caasimaadii halkan quraacdii saaka quruxda badnayd aad iyo aad ugu soo shaqeeyey usmaan maxamed muuse oo intaa khayrkii nala jeclaayo maaragtay runtii ku deeqay waktigii dheeraa iyo safarkii dheeraa maaragtay gaarigii keliya oo asoo ku soconaya annaga ee ku darsaday xamladii iyo sheekha soo dhaweyntiisii awla sheekheennii buu ahaa dhammaantii markaa waa idin mahad celinayaa meeshaan meel qurux badan weeye sheekh ku soo dhawow halkan waxaa lagu soo dhaweeyey mas-uuliyiin badan oo soomaaliyeed maaragtay dowladihii soomaaliya kuwa soo maray hadda ugu dambeeyeen madaxweyne farmaajo iyo xasan cali khayre waa meel runtii taariikhi ah oo waqti dheer jiday
oo maaragtay saaka waa aragtay biyaha dabiicigaas ka socda marka insha allahu tacaala mardaad timi boosaaso aad biyo kula arag ninkii biyo kula arag boosaaso yimaada boos ma tegin waayo waa lagu xujeyn karaa marka hadda biyo kula timaatay in boosaaso arkay baa tahay xijigii iyo maydigii wax walbana insha allahu tacaala waa tusaya ilahay idinkiis marka dadkan dhan waa ahlu qur'aan sida waalkii uu sheegay dad umaada culamaa oo dad karaamaysan oo diinta aad u ciseeyo weeye saaka allah markhaati fulayo ilaa garowe baasadi arkaysa diyaarsada aabuleydo baabuurtooda iyo qardho watii la fooriyey garow waa la fooriyey caarmo waa la fooriyey waaciya intaba waxaa dadkaan qaabilaysay boos maanta waa kuwa kalmaasada ahayd marka si gaaran mar labaad guud ahaan uga mahadcelinaya muasasada minhaaj ilaahay ha barakeeyo runtii haddaysan ayagu noo fududayn lahayn waxba nooma qabsoonayn xaqiiqa marka laakiin maaragtay masaajidadii camirnaa iyo khayrkii iyo soo dhoweyntii bulshada kulligood waxay ayagu ka shaqeeyeen bahayd marka ilaahay ajar ka siiyo bismillaahi raxmaani raxiim bismillaahi suma salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah allahuma salli calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam waxaa maanta farxad noo ah alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin inuu ilaahay noo keenay sheekh xasan waajidi oo ilaahay nooga keenay dalkii uu deganaa oo ka yimi dhowr cishana hadda nala joogay puntland maantana uu soo gaaray boosaaso oo aan aad ugu faraxsannahay qaariga iyaga haddii ilaahay noo keenay waxaan rabnaa caawi haddii ilaahadmo inaan samayno muxaadaro uu ka qabto masaajidka alhuda haddii ilaahadmo maantana musadadac uu soo maray waxaana rajaynaynaa haddii ilaahadmo inuu nagu soo noqnoqdo ay noqon maalintii koowaad uu noo yimi uu marar badan noo yimaado haddii ilaahay idmo baan ilaahay ka baryaynaa oo ilaahay weydiisanaynaa waxaan rabnaa inaan soo dhaweyno oo si sharaf leh hadda wuu naga degdegsan yahay oo biri buu tegayaa waxaa jidhi hadda dhallinyaro inay noo timi haddii ilaahay maayoy badan oo danaynaysa inuu noo joogo oo xataa faxayaan tigidhka annagaa bedelayna haddaan degdeg jirin marka sidaasaa dadka loogu helan yahay oo loo rabaa marka intaasaan oran lahaa soo dhowo sheekh asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim الرحمن الرحيم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم